dekedan Garacad waxaa maal gashaday Soomaaliya oo dhan oo waliba rag ka tirsan dekeda Hobyo ayaa maal gashaday waxaa kaloo idin sheegaya dekedan Garacad dhisitaankeedii waxaa laga dhisay Boosaaso marka Garacad waxay noqon doontaa insha Allah taala dekeda dhisi doonto dekeda mataanta la ah ee Hobyo ilaa idinkiisa rajeynaya haddii ay nala maal gashadeen dekedii annagana aan la maal gashano labada dekedood waxay noqon doonaa laba dekedood oo isla oo dadku ay wada leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah كل واحد مالنا يا عشورات كمر كل يرادو ودمي يقول ريم وشاقي وحنفيلا يا ونظام كدولة هوي أنا برايفت بان هاي عشورتنا الدولة ده جانجوين تيدا إسكاله لكن سيدا واقع هو جرا وحوي الصومالي هذا وحيلا هيد مركا لقى الريب ولا بدن تكدود هذا منا هذا يفرم يسمينا يصوص عطو مركا لقى الريب أفرد كدود بالهاي صوماليا أفرد هذا كدودنا مدول عشور جوني الهيد وعلو حيلن جري مرول بقناع ستدو حيلن جرتي أما أقول لي حنجرتي meesha ay isleedahay canshuurtaada ama dhaqaaluhu waxba ku safe garoobayo labada dekedood oo isu dhow 200 kilomitir isu jirana hadii ay wada furmaan waxaan rajeynayaa ilaahay idinkiis way ku qasban yihiin in canshuurta si qolo walba ay u hesho tartanka umaduuna faa'iido u yahay tartanka oo inay wax ku tartamaan oo shaqo lagu tartamo oo canshuur lagu tartamo oo qofka ka wax u safe garoobayo uu ku tartamo ayagoo maamuladii mid walba uu ka helayo dhaqaalihii u baahnaa markaas oo la soo jiito ganacsataduna meesha ganacsiga u roon iyay u leexanayaan taasina waxaan u maleynayaa kulli waa hawl maamulada u taalo laakiin dhinaca kale sidan haddii inta idin sheegay dekedan Garacad waxaa maal gashaday Soomaaliya oo dhan oo waliba rag ka tirsan dekeda Hobyo ayaa maal gashaday annagana waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiis inaan maal gashano dekeda Hobyo waxaa kaloo idin sheegaya dekedan Garacad dhisitaankeedii waxaa laga dhisay Boosaaso sababtoo qalabka wax lagu dhisayay oo dhan qaybihii hore oo dhan waxa uu ka soo degayay Boosaaso waxaan rajeynayaa anigana ilaahay idinkiis dekedan Hobyo xilliga la dhisayo qalabkeeda inuu uga soo dego Garacad uga soo dego sababtoo waxa weeye deked meel cidlaha kama dhisantay wax u baahan tahay qalabka waaweyn oo la isticmaalayo iyo alaabta faraha badan oo soo degayso lagu dhisayo lagu horumarinayo meel ay ka soo degaan bay u baahan tahay marka Garacad waxay noqon doontaa insha Allah taala dekeda dhisi doonto dekeda mataanta la ah ee Hobyo ilaa idinkiisa rajeynaya kolay dadkuna waxay ku tartami doonaan serviceka lagu tartami doonaa waan rajeynayaa inay dhaqaalaha iyo ummadda horumarkeeda iyo walaalnimadeeda iyo soo dhawaanteeda in wax walba ka qayb qaadato haddii ay nala maal gashadeen dekedii annagana aan la maal gashano labada dekedood waxay noqon doonaa laba dekedood oo isla oo dadku ay wada leeyihiin oo ummadda ka wada dhaxayso jazakum khayran